السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وتحنيه سوماليدا وين qaybtiisii 8 muuqaalkan insha Allah waxaynu ku eegaynaa halgankii Soomaalida Kenya. weli waxaynu sii socotay qaybtii Djibouti 1947 ayuu dhintay madaxweyne Bombido waxaana halkii qabsaday Kurdistan dawladihii ay ka shaqeynaysay bahdii isku xidhka Faransiiska iyo gumeysiyadiisii ee Niger, Senegal iyo Togo iyaguna waxa ay muujiyeen inay taageersan yihiin in madaxbannaanidooda la siiyo gobolkaas Ciisaha iyo Canfarta qoliyo kalena way ka soo horjeesteen dadaallo badan oo ay gumeystayaashii galeen waxa ay ku awoodeen inay yareeyaan oo noqosiyaan baaqi ahaa midowga Soomaalida oo dhan haddii dadkiiba ay Soomaalinimadii ku soo yaraanaysayna safiirkii Faransiiska ee Soomaalida ayay afduubeen xubno ka tirsan jabhaddii Djibouti waxaana ay soo jeediyeen in haddii aan degdeg loo soo deyn Cali Colowe oo ahaa madaxdoodii la qabtay ay u dilayaan safiirka waana la soo daayay haddana muddo kadib jabhaddaasi waxa ay afduubeen bas ay ciyaal iskuul Faransiis ah saarnaayeen dagaal dabadiina way wada dhinteen afduubayaashii ilmo yarina meeshii ayuu ku dhintay markaas ayuuna arkay Faransiisku inaanu Djibouti sidan ku sii haysan karayn waxaana uu ka qaaday cadaadisyadii oo uu u dabcay sanadkii 1976 ayay dhalintii Canfartu ku kaceen oo ka soo horjeesteen madaxweyne Cali Caarif iyagoo ku eedeynaya gacan saarka uu leeyahay Itoobiya oo markaas Canfar gumaaday Soomaalidii iyo Canfartii oo wada jiraana mudaharaado ayay galaabixiyeen gumeysigii baarlamaankiina shacabkii ayuu soo raacay inta madaxweyne Cali Caarif u safray Faransiiska ayuu istiqaaladiisii dhiibay siyaasadiisii Djibouti ee uu 16 sano garwadeenka ka ahaana halkaas ayuu kaga baxay waxa markaas la qabanqaabiyay doorasho afti ah oo lagu weydiinayo bulshada inay doonayaan madaxbannaanida Djibouti iyo in kale waxaana lagu kala codeynayay kaadhka madow iyo kaadhka cad inkastoo muwaadiniinta doorashada isu diiwaangeliyay ay ahaayeen 115,954 qof haddana waxa codeeyay 79,405 qof boqolkiiba 94.51 ka mid ahina waxa ay codeeyeen madaxbannaani 13 May 1977 kalfadhigii uu golihii baarlamaanku yeeshay waxa madaxa baarlamaanka loogu doortay Axmed Diini madaxweynaha dawladda Djibouti Xasan Guuleed Faransiiskiina calankiisii uu ka dejiyay Djibouti oo saldhig ciidan oo 5,000 oo askari u joogaan ciidan cirka ah iyo ciidan badda ahna uu kaga sii tagay dawladdii ugu horeysay ee Djibouti aqoonsatayna waxa ay ahayd Masar Djiboutina waxa ay sidaas ku noqotay dawladda 148aad ee golaha qaramada midoobay dawladda 22aad ee golaha jaamacadda Carabta iyo dawladda 49aad ee golaha midowga Afrika Xasan Guuleed waxa uu markiiba meesha ka saaray xisbiyadii siyaasadeed oo waxa uu sameeyay hal xisbi dalkiina waxa uu u sameeyay hinqasho dhanka horumarka dhanka Soomaalida Kenya marka aynu eegno sanadkii 1883 waxa dalka maanta loo yaqaan Kenya uu ahaa dhul daaqsimeed harooyin iyo buuro leh qabiilo haba yaraatay wax kulmiya aanay jirinina ay ka arrimiyaan oo degan yihiin markii uu Ingiriisku qabsaday ee uu muddo haystay sanadkii 1920 ayuuna u bixiyay gumeysiga Kenya sanadkii 1925 waxa la kala qayday deegaankii koonfurta Soomaaliyeed oo inna uu Ingiriisku la hadhay intii kalena loo bixiyay Jubbaland oo Talyaani lagu wareejiyay deegaanka Soomaaliyeed ee Kenya lagu wareejiyayna muran ayaa ka oogan badkiisii asalka ahaa oo mar waxa lagu sheegaa 50,000 oo mayl square marna 102,000 oo mayl square warbixintii 1930 uu ka soo saaray Ingiriiskuna waxa lagu soo bandhigay in badkeedu yahay 95,000 oo mayl square deegaankaasina Ingiriiska wuu dhibay oo maadaama ay deganaayeen dad Soomaali ah oo dhiig kululi intii u dhaxaysay 1890 ilaa 1912 cadaadis iyo caburin ayay ku hayeen Ingiriiska kadibna wuuba iskaga baxay Ingiriisku oo waxa uu dib ugu noqday oo saldhigyo ciidan ka dhistay Wajeer rabitaanka dadkana wuu muquuniyay 1919 warbixintii 1930 uu Ingiriisku ka soo saaray deegaankaas waxa lagu sheegay in dadka deegaankaasi ay yihiin 60,000 oo qof balse sanadkii 1978 tirakoobkii lagu sameeyay waxa lagu dhaahiyay in Soomaalida oo kaliya ay yihiin 472,000 oo qof deegaankaasna waxa ku labeeyay Oromada oo iyaguna muslimiin ah oo iyaguna aad u tiro badan deegaankaas
1924 ilaa 50 uu xidhnaa oo aqoonsi gaara ayaa lagu geli jiray. Ingiriiskuna iskumaba uu dhibin horumarinteeda oo waxa uu maamulkeedu ku andacon jiray in dadka deegaanku aanay horumarin diyaarba u ahayn. Xataa miisaaniyadda Kenya ee waxbarashada oo 1930 gaadhaysay 12,635 gini. deegaankaasi wax saami ah haba yaraato ee kuma uu lahayn. waxa arday ah oo deegaankaas u dhalatayna waxa jiray 44 arday oo ay kiniisadii waxbari jirtay oo joogay tuulada Marsabit. 1937 ardayda guud ahaan Kenya waxa u barataa waxa ay gaadheen 100,000 halka deegaanka dhan ee Soomaalidu uu ku lahaa kaliya 29 arday. waxana aynu oran karnaa waxbarashada iskumaysiga ee ka maqnaa deegaanka Soomaalidu waxa uu ahaa nasiib wanaagii ugu wanaagsanaa ee ay heleen waayahaas. Soomaalidaasi haba yaraato ee waxba kuma ay darsan jirin Kenya, kacdoonadooda, doorashooyinkooda, dastuuradooda, baarlamaanadooda iyo siyaasadahooda midna warkama ay haynin, mana ay danayn jirin ee waxa ay arrimahaas oo dhanba kala xiriiri jireen walaalahooda Soomaaliyeed. aqoontoodana waxbarashadii dugsiyadooda iyo barashada afka Carabiga ayay ku koobsadeen. markii ay Soomaalidu madax bannaani heshay ayay xabashadii gashay cabsi hor leh oo ay ka warqabto haddii ay Kenya sii dayso Soomaalida ay haysato inuu rumoobo fikirkii ahaa Soomaalida weyni, ammaankeeda iyo dalka ay gumaysiga ku mideeyeen uu khalkhal gelayo oo lagu soo jeesanayo. qodobkaasna waxa sababay in Kenya aanay danayn jirin deegaanka Soomaalida xataa xornimadeedii dabadeed oo way ka maagi jireen maadaama ay Soomaalidu necbaayeen Kenyaanka oo ay adoomo u arkayeen. Itoobiyana waxa ay la xiriiray dawladdii Kenya iyo duqaydii beelihii ka agdhowaa Soomaalida si ay xuduudaha Kenya u adkayso. 1960 xuskii sanad guuridii labaad ee madax bannaanida Soomaalida ayaa lagu casuumay madaxweynihii Kenya Muqdisho. madaxdii Soomaaliyeedna waxa ay kala hadleen qadiyadda Soomaalida uu haysto deegaankooda iyo inuu Soomaalida kale ku soo daro. sidaasna fikirkii Soomaalida weyni uu ku dhaboobo dallad ay ku midaysan yihiin dawladaha bariga Afrikana la sameeyo, balse ganafka ayuu ku dhuftay soo jeedintaas. 22 Oktoobar 1962 ayaa guddi xaqiiqo raadin ah loo soo diray deegaanka Soomaalida. afti ay ka qaadeen ku dhawaad 40,000 oo Soomaali oo deegaankaas u dhashayna waxa ay ka soo saareen qodobo ay ka mid yihiin: 1. dhammaan dadka Soomaalida ahi waxay doonayaan inay ku biiraan Soomaalida kale. 2. gaalaha ama Oromadu waa laba waaxood oo qolana ay doonayso inay ku biirto Soomaalida, qolada kalena Kenya. 3. muslimiinta ummadda Booraan waxa ay doonayaan inay ku biiraan Soomaalida, gaaladooduna inay Kenya ku sii nagaadaan. waxana ay ku soo afmeerantay xaqiijinta guddidaasi in 6 gobol ee deegaankaas ay 5 ka mid ah hal dabala u doonayaan inay ku biiraan Soomaalida, waana gobolada Gaarisa, Wajeer, Mooyaale, Mandheera iyo Usuulo. warbixintaasna cagta ayaa la hoosgeliyey oo ahmiyad lama siinin. wasiir Ingiriis ayaa ka dhawaajiyay in deegaankaasi uu ka mid yahay Kenya, ciidan Kenyan ahna la geeyo dalkaasna uu ka tirsanaado. gudood iyo mudaharaado ballaadhan ayaana dhacay. Hargeysana waxa ka dhacay mudaharaad ballaadhan oo Ingiriiska warwargeliyay. 70 oday dhaqameedkii deegaankaas NFD-na shir ay ku qabsadeen Wajeer waxa ay ku soo saareen inay qaadaceen doorashada aftida xornimada Kenya. madaxweynihii Soomaaliyeed ee Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa isugu baaqay golihii wakiilada. dood dheer dabadeedna waxa go'aan aqlabiyad ah lagu meelmariyay in xadhigga loo jaro Ingiriiska, caawimadiisa dhaqaalena la diido. dawladduna waxa ay taageeri jirtay kacdoon-wadayaasha kullidiga ah Kenya. dhanka kale Kenyaankina waxa ay ka dhawaajiyeen inay diyaar u yihiin dagaal cidii doonaysa Soomaaliduna ay u guuraan dhulkaas Soomaaliyeed iyaga oo aan xabad ciidda Kenya ah sidan. 1963 iyada oo ay dalkaas Soomaalida ay Kenyaankii dagaal jabhadaysan kula jiraan ayayna Kenya qaadatay madax bannaanideedii. dhaqdhaqaaqaas ay jabhadda Soomaalida ahi waday waxa uu oogi gaadhay dagaal ballaadhan oo dhex mara Kenya iyo dawladdii Soomaaliyeed. taasina waxa ay sababtay in January 1964 ay Kenya iyo Itoobiya heshiis wada jira galaan. heshiiskaasna toos ayaa loogu badheeray dawladda Soomaaliyeed. markaas ayayna dawladda Soomaaliyeed u jahaysatay oo la xidhiidhay Ruushka iyo Shiinaha iyadoo ka raadinaysa hub, doonaysana inay isu dheeli tirto taageerada iyo heshiiska kala dhexeeya reer galbeedka, gaar ahaana Mareykanka iyo Itoobiya oo iyaguna ay dhankaas Ruushka taageero ka helaan.
golihii wasiirada ee bahdii midowda Afrika shirkii ay ku qabsadeen February 1964 Dar es Salaam iyo Lagosna waxa ay ku soo jeediyeen in Soomaalida xabashida iyo Kenyaanku ay wada hadallo wada sameeyaan waxana ay uga dan lahaayeen bal in xal nabdoon laga gaadho ishaynta xuduudaha ee dalkaas iyada oo qodobkaas laga duulayo ayayna wada hadallo foolka foolahay ku dhex mareen dalalkaas Khartoum bishii Maarch 1964 iyo Accra bishii October 1965 iyo Kinshasa 1967 goobahaas fooda la isku daray oo dhan lagama soo saarin wax dhibaatadaas xal u noqda balse waxa cadayd mar walba in higilka dawladaha Afrika uu la jiray Haile Selassie iyo Jomo Kenyatta ilaa laga soo gaarayay dhamaadkii lixdamaadkiina dagaaladii ka oognaa deegaanka Soomaalida ay Kenya haysataa wuu oognaa oo raadad xunxun ayuu sameeyay deegaanka Soomaaliyeedna waxa uu ka dhaxlay xasilooni siyaasadeed iyo mid bulsheed oo muddo uu si madax bannaan u yara neefsaday hagoogtii gumaysigu uu saarayna ay ka yara faydantay